لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore magacaygu waa Cabdiraxiin Axmed Maxamed. waxaan ka hadlayaa ahamiyadda ay hooyadu ugu jirto bulshada. marka aan leeyahay ahamiyadda ay hooyadu ugu jirto bulshada, waxa laga yaabaa qofka bini'aadanka ah ee 60 ka gaaraya noloshiisa marka laba loo qaybiyo badh inay isagu soo kaabto, taasina waa run ama xaqiiqo dhacda. qodobka koowaad, xaqa ay diintu siisay ka ama xadiis ha noqoto ama ayadihii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noqoto. waxa laga wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ninu yimiday kuna yiri man axaqa an-naas ilayya ya rasuulallah, aniga agtayda dadka iyama igu khayr badan kaan xaqa siiyay inta mudnaanta. wuxuu ku markii koobaad hooyada, mar labaad ku celiyay masuul haddana hooyada, mar saddexaad buu ku celiyay haddana hooyada buu ku celiyay, saddex jeer markaa ku celiyay, mar afraadkii buu ku celiyay masuul marka dambe waa aabaha. bari baa wax dhacday, asxaabi ayaa hooyadii intuu dhabarka ku qaaday ayaa wuxuu ku geeyay xajkii. dina khalifadii mid kamid u yimiday wuxuu ku yiri xaqii hooyadii ma guday, waayo dhul fog oo xajka ka fog intaan dhabarka ka soo qaaday ayaan xajkii ku geeyay. dina wuxuu ku yiri iska daa inta soo noolad waxay ku soo qabanaysaa ee waxaan abaalkeeda gudin mar kaliya oo qaydka lagu xambaaray ilmaha intuu u dabcay ay naxday. qodobka labaad, caasinimada. qofka hadduu waalidka caasiyo maxaa ka iman kara? hadduu saadeeco maxaa ka iman kara? aan ka horeyna caasinimada. qofku waalidkii gaar ahaan waliba hooyadii markuu adeeci waayo waxa xaqiiqo oo dhacda nolosha intiisa badan inuu madmadow ka galo. sheekaya dhacday inan yar baa wuxuu ahaa qalqaali, marka aabihii buu ka quustay, dhinac walba wuu xidhay, meel kastuu geeyay, jeelka wuu ku soo xidhay, wuu ka quustay. hooyadiina niyaduun bay u dejin jirtay, marka la soo xidhay iyada ka soo furi jirtay jeelka. maalintii dambe ayuu aabihii maxkamadda tagay, waran buu soo goostay in inanka la geeyo Madheera. kabacdi dhowr bilood markuu ku jiray ayay hooyadii ugu tagtay. waxay ku tiri hooyo sidee lagula macaamilaa, si fiican dadku ma kula dhaqmaan, ka waran xaalkaaga, shawiga meesha. wuxuu ku yiri hooyo meesha dad wanaagsan baa jooga, si fiican waa la dhaqmaa, meesha si fiican ayaa la macaamilaa. dadna waxay ku tiri waan tagayaa hooyo garabkaaga. bacdeen wuxuu ku yiri kaala ku dhunkade. saasay ku tiri labada dabnood ayuu ka goostay, uu ka qaniinay ka uu ka goostay. dhiig isagoo dareeraya ayaa waxa ku noqotay u qaadan waa wadnii baa istaagay oo dhimatay hooyadii. kabacdi waa loo imiday, waxa lagu maxay hooyada waxa uu sameysay. wuxuu yiri hooyadii dambigeeyada lahayd, waayo markaan dad soo dilo ee la xiro way soo dan jirtay, qaladka iguma oran jirin ka joog, tan aan maanta Madheera lagu xirayna iyada uu sababa. marka sidaa darteed baan u qaniinay buu yiri. haddaynu ka sheekayno adeeca, qofka adeeca wuxuu helayaa markaa. rasuulka waxa laga wariyay calayhi salaatu wasalaam inuu yiri jannadu waxay taalaa labada lugood ee hooyada hoostooda. yacni marka haddii waxay ku dirto ama sida ay kula dhaqanto ama waxay ku dirto aad sidoo uga soo baxdo ay markaa ka faraxdo, waxa laga yaabaa inaad jannada ku gasho. bari baa waxa dhacday inan baa hooyadii aad buu ugu adeegi jiray, uu adeeci jiray, in badanna wuu shaqayn jiray, hadalkay ku tiraado sideedu uga soo bixi jiray. bacdeen markaa muu arki jirin tiknoolajiyada, waxaan muu arki jirin. albaabada Soomaalida inta badan waa la iska furo. Dubay buu tagay, madaarkii isagoo ka baxaya ayaa waxa jirta caalamka albaab saa u furmaya, markaad saa u istaagto miisaankaaga u dareemaya u furmaya albaabkii. waxa dhacday inuu albaabkii galay, marka albaabkii isagu gacantu la tiigsaday ama wuxuu ka waday inuu iska soo furo albaabka. dadna albaabkii markuu miisaankii dareemay ayuu albaabkii isfuray. bacdeen hooyadii waxay ku oran jirtay hooyo albaabkaad istaagtaba lagama xidho, yacni hadday arsaaq tahay, hadday ciidaad wax ka doonayso tahay meelna lagama xidho.
wuxuu xasuustuun ducadii hooyadii ee ahayd hooyo meelna lagama xidho dadna albaabkaad gashaaba ha ku furmo albaabkii uu baaska furmayo dadna ragii ka dambeeyay ma u qaadanin inay ku yiraahdeen waa tiknoolajiyad waxa isma sheegay rasuul waa ducadii hooyadii taasina waa tii adeeca waalidka haddaba hal abuurka ama suugaanyahanada Soomaaliyeed maxay ka yiraahdeen arinta suugaanta iyo sidii ay u xustay waxaanu ka tilmaan qaadan karnaa abwaanka weyn ee Ilaahay khayr ha siiyo abwaan Hadraawi oo isagu dhowr laba maansa kale laakiin inta badan waxaad arkaysaa da'yarta ama dadka waaweyn ee hal abuurada ah maasooyinkooda lagama waayo mid hooyo ku jirto kow Hadraawi marka labaad isaguna Ilaahay ha u naxariistee Carays Ciise Kaarshe wakiilaha hooyadu waa lama huraan sidoo kale waxa isaguna ka hadlay abwaan Mursal oo isagu inta badan uu hooyada ka sheekeyn jiray maasooyinkeeda una dadaal jiray inta markaynu ka imano hooyadu waxay ugu jirtaa bulshada kaalin muhiim ah waxayna bartaa ilmaha akhlaaqda iyo dabeecadda wanaagsan soo ilmuhu hadhow ugu barbaaro dad la socon wanaagsan akhlaaq wanaagsan iyo waliba la mucaamalka dadka oo hagaajiyo inta badan markaad aragto caruur yar yar ama aniga hay leekadaan ama hayga weynaadaan oo marka caayaya qof isaga leeg ama ka weyn Soomaalidu inta badan waxay tiraahdaa gurigoodu kala yimid beenna ma hataasi yani qofka ay hooyadii ku barbaariso akhlaaqda wanaagsan waxa laga garanayaa caayada ma yaqaano sidoo kale dadka oo afka loo taaga ma yaqaano inta badan akhlaaqdiisu way wanaagsan tahay qofkaas qofka isagoo yar ay hooyadii ka dhimato kaasina sidoo kale isaguna uu dareemaya waxa laga yaabaa kaas markaa inaanay hooyaba is arago uu wuxuu doono ku kaco ama wuxuu doono uu sameeyo barnaamijka intaas aan kaga qayb qaadanaya Ramadaan Kariim hooyadana ha la ogaado ha la ilaaliyo